horta aniga milyan si sharaf leh aan isu guursanay maanta si sharaf leh ku kala tagnay waliba intii aysan ma kala tageen iyo waxaas ay soo bixin ka hor aan ayada kala dhamaanay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قركم بقر عبد الفتاح بالشاوي نصب بناندقي ويل للي ويلك ويلشا صاحب داعد نمذك أهراك إرويلك. رمضان كريم ميرول بقى جوكتيد وحول بقى يكوت هاي وناكسن فضلنا ديت أمريكا جورة سجلنا كي يصب وقنا صح حشمنا كي عشان لايك سبسكرايب شير كومنت أنت أصلهم حي تدير رجينا سيدو كلا طلع فكر دايس أنا كومنت هاني وسوقده سيدو كلا إنستغرام كي أصب وقته ساعة وان كركو صارتين بقى أرهن رنتي أنا الرمين أنا كهالله لكن ساعة أنا شغال صعدا عارك قري يوتيوبر ليه أو أرنتاس كهالله أرنتاس أرنت شرم بوي يمليون مانك runtii waa arrimo qoys arrimadii maanta in social media laga hadlo ama la dhex keenan horta ma ahayn laakiinse way noqotay waan xasuustaayo hadda barnaamijkan hadda dadka social media soo gashay ka hor inta social media soo gelin bahameen waxaan ku yiri sharmow arrintan hadalkan meel ku qoro social media arrintan way imaan doontaa waxaan ku kala baran doontaa dadka ku kala baran doontaa arrintan social media maanta dadna ku kala baran doontaa tiibaa taagan tiibaa dhacday sababta aan u wirina waan sheegi doonaa sababta markay ku kalaftay maanta arrintan ka hadlo yani waa arrimo qoys yani wax hadda laga hadlo ama YouTube loo soo fariisto ma ahan heblaaya hebel furay laakiin waxaan u arkay in ay maqaaxiyo ka dansan yihiin oo de maanta YouTube dhaqaale laga sameeyaa qofka marka dusuu wax uu ka hadlo garan waayo de labadii isfurtay ama labadii isguursaday inuu ka hadlo marka danta u keenaysa marka yaan lala yaabin oo waxaan oran karnaa dan iyo duruuf baa u geysay haddii ay noqoto in arrimo qoys laga hadlo ama heblaaya hebel guursatay heblaaya hebel furay barnaamij haddaan ka hadli lahaa shalay iyo daraadba social media waxay ahaayeen fartan balbalaar iyo cismaan dheeman oo loo saaxiibaan aad igu dhow oo dhammaantiin awood ogtihiin arrintooda social media ku jirtay anoo ka hadlaya miyaa la arka muuqaalka soo duubaya waa may sababka dee waa dad family ah waa dad aan saxaabnahay waana arrimo qoys dee sabab hadda maanta ninkan ka hadlay heblaaya hebel furay waxaas dee waa wax iska maraa yacniya laakiin tan hadda sharma inaan ka hadlo waxa keenay marka arka youtube qaar oo aan leeyahay aadaaga xumay wallahi wax dhacay waa ka mirugooday war ma cid baa dhimatay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un cid meesha kuma dhiman yani weliga la isguursanayay la kala tegayay milyan uguma horeyso qof gabar ugu horeyso dee maanta dee la furo ayada uguma horeyso ama baaga muddo ayada uguma horeyso fartun baa shala baaga muddo ahayd dad badan baa baaga muddo ah oo social media ku jiro intaas dee socdaal baa gabar ku furay live ku furay cismaan dheeman baa balbar live ku furay sharma isagoo ka duwan tahay arrin de maalmahan dabada laga wado la kilkileeyay la qodqotay baa danta wax ku qasta marka dambe inuu daasna uu sheego waana sababta hadda keentay inaan marka annaguna aan wax yar taabto inaan ka hadlaysa mar raba arrimaha qoyska okay dadkan dee rashad sharma waa nin ilaahna wuxuu banay afar ilaahay markuu dhahayay hal la guursado موسى أورن هلا جورسدا وحكم بلا مثنى وثلاثا والرباع بيري لهي لبا صدح يا أفر جورسدا يعني دي ولا باتن شركة هذا كبير إلى هنا وحو بنيي إنه جورسدا أفر يعني أدوف ري محافظ ما شرط ما يتعلق هذا جورسدا محق جورسدا ما شرط ما يتعلق قف كنورس السجع حرة لكن تذكر في سكور هذين هيا أمد أرميه مخاطر وين كل شيطان تتحسب ماشي هذا وقتي أن وين أنت السوشيال ميديا سوقين بهرت هوش عند ماتي oo arrintan aysan yani isku soo dhawaanba marka maalinkaas baa waxaan ku sharmo arrintan social media way soo galaysaa maalin amaanta ahayn halkaasna meel ku qoro sababtan hadda in sheegay aan u leeyahay hadalkaas sababta awr waxay ahayd gabadha aad guursanayso haddii ay tahay gabar social media ku jirta hadday tahay gabar TikTok isticmaasha hadday tahay gabar YouTuberada haddii ay tahay fanaanad ka qabana sidoo kale uu yahay ninka qabana sidoo kale uu yahay laazim waxa wax walba oo in dhex yaala social media iimaanayaan yani wax nolol bareefad yiraahdo oo aan leedahay habeeraad ma jiraan nolol bareefad haddii aday xaaskaaga ay tahay fanaanad ama ay tahay tiktokerad ama ay tahay youtuberad labadina social media ku jirtaan nolol bareefad oo marka ay qorsan habeeraad ma jirto sababka maalin amaanta ahayn hadda isku waxliga dadka qaran isku farxsan yihiin galgacal social media laakiin maanta بريك ما أنا كلا ما كرتو يعني عشرة إن لقى برتو تياد إيه سعدال بالبلار تشرمة يعني قف كمستقبل كاجا إن إكمل بنات هاي السوشيال ميديا وارتن شنو عري تتكقر يعني يوتيوبر أما فنانين السوشيال ميديا كتير ميارتين حاسس كذا وماي
waxaan xasuustaa yar youtube fanaan ah oo rapper ah oo la wada yaqaan oo caan dhalay aan rabin inaan dalka magaciisa ka sheego baa maalin waca waxaan ku yiri niyahow maalmahan wax heesa lagama hayo maxaa kugu dhacay baan ku yiri waa jiftaay wuxuu yiri problem xagga xaaska ah ama familka baa jiray gabadhii hadda waan furay oo waan kala tagnay marka hadda wax karkarinaya heesa soo saaraya okay ninka maxaa youtube loo keeni waayey waayo xaaskiisa lama yaqaan social media kuma jirto marka sababta aan sharma u yiri arrintan social media way imaan doontaa waana ogaan doontaa halka meel ku qoro taas eed waayo gabadhii waxay tahay gabar social media ku jirta tiktokerad weeye fanaanad weeye youtuberad weeye marka sababtaas weeye sababta ay social media u timid laakiin haddii aysan marwada aysan social media shaqo ku lahayn ma soo gelayso social media wax imaanaya ma aha laakiin qorshaha kale hadda ee sharma waa qorshe aan ku raacsanay maasha allah 100% hore u socon ku leeyahay brotherkaygii waxaa kuu soo haray arrimahan kale ee qoyska dadka ku mashquulsan war waxaan leenahay waxaan waa wax idinka horreeyey waa wax hadda cashar hadda inaga bartana ay muhiim tahay marwada aad guursanaysaan ha ahaato marwo social media aan shaqo ku lahayn gabar baadiye joogta caanooley ah mobile niclaa wadata xataa ee aan mobile weyn wadan laakiin social media ku wada jirnaa dee wixii markaa dhow ka yimaada dee mas-uuliyaddeeda u adkayso ilaa adaa waxa weye gabadha waxay ahayd gabardee social media markaas u bareertay ah okay arrinta kaloo jirta waxa weeye aan raba inaan idin sheego laakiin muuqaal gooni aan isleeyahay inaan ka diyaariyo inaanan ka diyaarin aan isku hayo maadaama bil ramadaan inagu jirto nin runtii anigu aanan aqoon laakiin aniga saaxiibkay ay saaxiib yihiin wallaahi oo billaahi oo tollahi waa soomana waa maalin rabadaana beenna kuma dhaaranayo ninkaas wuxuu sameeyey gabadhana waa gabadha qodo marwadan oo gabar social media ku jirta oo tiktokerad ah oo la yaqaano caan dhalay ah marka gabadhii inta habeenkasta live bay ku jirtaa tiktok habeenkasta live bay ku jirtaa habeenkasta qof bay la ciyaaraysaa social media haddii magaca caan ah bay la ciyaaraysaa waxaan u haystay wallaahi oo billaahi tollahi gabadhaas inay kula ciyaarayso dee aqoonteeda ama kartideeda maalin asaa u fogeyn oo hadda maalin laba maalin kasoo wareegtay baa yar isoo wacay barnaamijyaan ka wada hadlanay deedna wuxuudaan ku yidhi arrin bas kudaqa markaasu heblaayo ka waran markaas war naga daawirniyo oo maxaa dhacay wuxuu yidhi ninkeeda maalin walba wuxuu igu weeraraya kaala islaanteeda la ciyaar yacni sharaf darro iyo bahadil maanta haddaa ninkaas isku dayo inaan hadda hor keeno bulshada wallaahi waxa weye ninkaas social media way qabsanaysa asan nin saas oo caana ma aha laakiin gabadhiisa waa gabar dee caan ah oo social media asan waa nin iska caan laakiin caan weyn usan ahayn waxaan ku qadarinaya ku xushmeynaya saaxiibkii bay saaxiib yihiin laakiin waxaan leeyahay inuu nin dhalinyaro kale u waco yidhaha kaala maanta xaaskayga la ciyaar kaala xaaskayga la kala kici oo weliba ninka uu ka codsanayo uu ka diiday uu yidhi niyo ninka waa isku dhacsan maxaa isku dhacdeen hadda kahor bir xaaskayga game la ciyaaro waa ka diiday marka saasaas ku dhacsannahay buu yidhi oo weji kama lihi hadda maanta oo weji iskuma hayno maadaama xaaskiisa uu intiir kaala naagteeda la ciyaar aan ka diiday yacni billahi baan ku dhashay waxaa suuraysataan nin ku dhahaya intuu kusoo wac kaala naagteeda la ciyaar uu leeyahay naagta hadda chance ma hayo habeen dambe ii ballan caawa gabar kale la ciyaarayahay mid kale wacaya markaasuu leeyahay kaala naagteeda la ciyaar markaasuu leeyahay niyo anun gabdhaha lama ciyaaro yacni nin gabadhiisi social media awr wareejinaya ka warrama ninka haddaa maanta isku dayo inaan codka banaanka keeno wallaahi oo billaahi oo tallahi waxaan ku xushmeynayaa saaxiibkii bay saaxiiba yihiin gabadhana waa gabar walaashay aan xushmad u hayo aan saaxiib aan oran walaashay oo kale ayadana oo yani whatsappkan aan friends ka nahay oo dad isku fiican aan nahay laakiin waxaa sharaf darra ah inuu gabadhii yiraahdo war kaalay nin kale asaagiis u waco oo youtubera oo tiktokera oo qaarkood isgaran oo lambarooda raadiyo oo sababta u raadinaysa ay tahay keliya naagteeda kale la ciyaar caawo berri markay social media soo gasho ama arrimo kale ay yimaadaan waa wax soo kasbaday marka muuqaalka inaan ku dheeraada mar rabin kaliya waxa rabeen aan sheego arrintan hadda social media la wareejinayo leeyahay sharma iyo milmaanku way kala tageen arrintan mar hore ay ahayd laakiin hadalkan ku sharma oo ahayd arrintan social media way imaanaysaa sababta u imaanaysana sabab kale ma waxa weeye social media ku jirta sharma gabadhan social media ku jirta waa fanaanad waa youtuberad waa tiktokerad waa khasa marka arrintan social media way imaanaysaa laakiin haddii aysan ahaan lahayn qof social media ku jirta arrintan social media ma imaateen laakiin waa cashar loo baahan yahay in laga barto way jirtaa an gabar ila soo xiriirtay oo tiri arrinta si wax u dhaceen aan kaaga warramo yani ma aha tan hadda sharma kaliya ma aha laakiin gabar saas kalanta loo furay oo gabar ayadana caan ah nin caanan uu qabo tiri qaabkaas ka hadal baan ku anigu waxaas inaan nin saaxiibkay waxa weeye dalka ku safar saaraa gabadhii aan wareystay ninka waxaas waxaan ku yidhi ratag baan ku dhiiqa lagu hayay gelin marka arrinta codka Sharma Boy ama muuqaalka Sharma Boy ama daawano
Soomaali Maxamed horta inta xanta jecel waan salaamayaa. waxaan rabay inaan ka hadlo oo muhiimna ila noqoto inaan ka hadlo. horta ilaahay adduunkan wuxuu u weyneeyey oo u ballaariyey in ay dadkiisa ku kan nabad galaan muslim iyo gaal inta uu abuurtayba. su-aasha marka isweydiinta mudneed oo social media dhex wareegaysay oo socotay waxay ahayd Sharmaake iyo Malyuun ma kala tageen. horta aniga Malyuun si sharaf leh aan isu guursanay, maantana si sharaf leh ku kala tagnay. weliba intii aysan ma kala tageen iyo waxaas aysan soo bixin ka hor aan ayada kala dhamaanay, laakiin arrinkeena social media ma keenin. haddana daruuri way ila noqotay inaan hadeertaan dadka u sheegaa wax qalada kuma kala tagin. gabar wanaagsan oo isqabno walaashay ahayd kala dhamaanay. ilaahay afar buu ku baneeyay Sharbow, ilaahay afar buu ku baneeyay waxa taa 20 jir ka adag bir brada. yacni tanna waxay ku noqonaysaa 10 noloshana waxa uu inaa wax ka barato way wanaagsan tahay. marka aniga ma rabin inaan ka hadlo arrimahaas, laakiin halka anoo shaqo u socdo marka arkay dad YouTuber waaweyn ah oo aga wax ma arinta ku dhacday. war Malyuun miyaa dhimatay, ma Sharma dhintay, war gabar la furay Malyuun ugu horeysaa, ma gabar baag muddo Malyuun ugu horeysaa. wallahi oo billahi oo tallahi Sharma Malyuun laba sano buu ka jeclaa. aniga xataa laftkii lama filaan waxay igu noqotay yani lama filaan. yani Sharma gabadha darteed bay dad saaxiibadiis dadka ugu dhawaa bay ku kala dhinteen wallahi. marka de qofku wuxuu isbedeli karaa arrimaha qoyska ayaga u yaalan wixii dhex maray marka ama lagu kala tagay waa wax ayaga oo khaas ah u yaala, waa arrimo ayaga u yaala. laakiin in wixii laga dhigo gabadhiiba haddii mar la furo in la bes way khalaas oo dhamaat ninkii una waa u dhamaat. war maaha waxaas aan wax weyn laga dhigin. arrimaha waa arrimo qoys. hadda kadibna tala iyo waan haddii laga rabo nin walba social media ku jiro, gabadhaada ha ahaato gabar aan social media shaqo ku lahayn, kaamirad aan shaqo ku lahayn, youtuberad ahayn, fanaanad ahayn, tiktokerad ahayn, sida dadkaas caadiga dashina culi dadka qaar waaweyn aan xaasaskooda looga arag meelaha qaar ha ku ahaato. ay saahan haday noqotaan ha isla boodboodno. biri kamaan waxaa imaanaysa wax nolol barefal inaan lahayn, wax walba oo markaas ninkan dhex marna ee social media kada gabadhii biri kamaan afka furan ka dhaa, ninkan afka furan karaa. marka intaas ayay muuqaalkii kusoo gabagabeynaysaa. muuqaalka muuqaal ma kulmi doono. waxaan kaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. عبد الفتاح بلشاوي 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 بلشاوي عبد الفتاح 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 بلشاوي